coisa que ele jamais pensava de trás. dadku waxay isweydiiyeen ciyaarihii Olombikada ee London lagu qabtay sababta ay Braziliyaanku u wateen xaaqimaha ama iskoobaha dhulka lagu xaaqo balse waxaa la ogaaday in ay ahayd ficil ay ku weyneynayeen kuna muujinayeen jacaylka ay u qabaan madaxweynahoodii hore ee Lula da Silva. madaxweynahan jacaylka ay dadkiisa u qabaan wuxuu gaaray inay ku naaneysaan wiilkii Brazil waxaana lagu sheegaa inuu yahay shakhsiga ugu caansan gudaha dalka Brazil. Lula da Silva waa madaxweynihii 35aad ee dalka Brazil wuxuuna ku dhashay 27 Oktoobar 1945 magaalada Gran Hanes oo ay danyartu ku badan yihiin. mar uu booqday gobolka uu ku dhashay ayuu soo xasuustay xaaladii adkeed uu ku soo koray asigoo kolkaasina ilmeeyay. sidoo kale wuxuu ilmeeyay mar uu maqlay gabay ku dhahaya waxaa tahay madaxweynihii kasbaday jacaylkii ugu weynaa ee danyarta. ilmadiisa saddexaadna waxay soo dhaaftay mar la xusay guushii uu madaxweynaha ku noqday 2002 asigoona guushaasi ka hor ku guul dareystay doorashooyinkii 1989 1994 iyo weliba 1998. guuldarooyinkaas markii uu la kulmay wuxuu cod dheer ku dhihi jiray dadka danyarta ah ama fuqarada ah waa kuwo aan isku kalsooneen oo aan garab taagnayn. ilmada Lula da Silva waa mid aan siyaasad ahayn balse waa mid ay ku lamaan tahay taariikh iyo nolol adag uu ku soo koray. wuxuu ahaa yaraantiisii mid kabaha ku caseeya jidadka magaalada São Paulo kaalin shidaalna ka xaaqa qashinka. Lula da Silva sidoo kale wuxuu soo noqday makaanik sameeya gawaarida wuxuuna mar ka mid ah noloshiisa jidka ku gadi jiray qudaar. wuxuu ka mid yahay madaxda ugu caansan ee salka hoose ee nolosha ka soo kaceen isla markaana hiigsadeen mansab iyo madaxnimo. da Silva waxaa dhashay oo soo barbaarisay hooyo in badan soo dhiirigelisay isla markaana soo korisay asiga iyo 7 caruur ah oo la dhalatay. asiga iyo walaalihiis waxaa ayagoo da'yar ka tagay aabahood waxayna hooyadood ku qasbanaatay inay dejiso qol yar oo ku yaala meel qamaarka lagu dheelo isla markaana qamriga lagu cabo. goobtan waxaa ka daarnaan jirtay muusig cod dheer oo aan laga seexan karin waxaana ka soo bixi jireen dad cabsan oo wax walba oo xumaana ay suurtagal ka tahay. Lula da Silva asigoo yar wuxuu ku noolaa qolkaas mushkiladu ku hareereysneed waxayna xaaladdu ku sii adkaatay markii ay hooyadii geeriyootay. mar uu ka sheekeynayay Lula da Silva hooyadiis wuxuu yiri waxay bartay sidii aan u socon lahaa aniga oo aan madaxayga hoos geynayn iyo sidii aan u qiimeyn lahaa nafteeda si ay u qiimeeyaan dadka kale. wuxuu kaga haray waxbarashada fasalka 5aad faqri iyo dhaqaale xumo uu wajahayay awgeed wuxuuna markii uu jiray 19 sano uu ku waayay far ka mid ah farihiisa gacmaha shaqada makaanignimo. duruufaha iyo shaqooyinkaasi adag waxay ka dhigeen nin adag oo wajihi kara caqabadaha nolosha. wuxuu horjoogo u noqday koox u ololeysa xuquuqda shaqaalaha oo ka soo horjeeday nidaamkii kaligii taliska ahaa ee xilligaas. sababtaasna waxaa loo dhigay xabsiga oo uu ku qaatay 9 sano iyo bar. markuu xabsiga ka soo baxay ayuu ka shaqeeyay siduu madaxweyne uga noqon lahaa Brazil wuxuuna ugu dambeyn ku guuleystay kursiga madaxtinimada 2002. mar labaadna waxaa la doortay 2006 sidaasna wuxuu madaxweyne ku ahaa 8 sano. dastuurka Brazil wuxuu dhigayaa inuusan hal madaxweyne soo noqon karin in ka badan 2 jeer oo isxigta. sidaasna da Silva wuxuu ku waayay jaanis kale uu ku noqon karay madaxweynaha Brazil. intuu xilka hayay wuxuu xoogga saaray kaalmeynta iyo soo kicinta nolosha dadka saboolka ah. 8 sano uu xukumayay wuxuu Brazil ku soo daray liiska dawladaha hodanka ah. markii uu kursiga ka degayay sanadkii 2010 ayay malaayiin reer Brazil ay isugu soo baxeen mudaharaadyo ay ku codsanayaan in wax laga bedelo qodobka dastuurka ku jira ee dhigaya inuusan madaxweynaha soo noqon karin in ka badan 2 jeer oo isxigta si uu da Silva madaxweyne u sii ahaado sanado kale. balse Lula da Silva asigoo ilmeynaya oo kelimad sigootina u jeedinaya dibadbaxyaashii ayuu wuxuu ku yiri si aan fursad ugu helo inaan dalka madaxweyne ka noqdo ayaan 20 sano ka hor soo bilaabay halgan aan xabsi u galay oo aan ku dalbanayay inuusan madaxweyne soo noqon 2 jeer oo isxigta ka badan. wayna ii suura gashay maantana diyaar u meehi inaan anigu jabiyo sharcigii aan shalayta u soo halgamay. laakiin wuxuu soo rogaal celiyay sanadkii tagay si uu ugu guuleysto doorashada una noqdo madaxweynaha Brazil asigoo ku tashanaya shacbiyadiisa.
balse Lula da Silva waxaa lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ayadoona laga qaaday xasaanadiisii. waxaana dibadbaxyo waaweyn dhigeen shacabka Brazil ayagoo doonayay in ay booliska ka celiyaan Lula da Silva si aysan xabsiga u geyn. wuxuuna Lula da Silva kolkaas yiri, waa qorshe lagu doonayo in la iiga hor istaago doorashada soo socota maadaama kuwa xilka haya ay og yihiin in aan ku guuleysanayo. waxaana loo dhaadhiciyay xabsiga asigoo ku xukuman 12 sano.